banaanbax looga soo horjeedo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. dadka halkan isugu soo banaanbaxay ayaa waxay sheegeen inay aad uga xun yihiin in ilaa iyo haatan madaxweynaha Soomaaliya ee muddaxileedkiisu dhammaaday Farmaajo uusan heshiis ka gaarin amaba uu fashiliyay heshiiskii dhuusamareeb ee dhawaan ay ku shirayeen halkaasi madaxda dawlad goboleedyada iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya. 8 February oo la soo dhaafayna aan ilaa iyo haatan lagu heshiinin nooca doorasho amaba qaabka loo galayo. qaar ka mid ah dadka halkan isku soo baxay oo aad u caraysna ayaa banaanbaxa ka hadlay. aan halkan ugu soo banaanbaxnay oo rabnaa in aan ka muujino shucuurteena waa madaxweynihii hore dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigiisa wuxuu ku dhameystay si mugdi iyo aan macquul ahayn. caruurteenu waa laayay ila tariyo afka ugu shubay wiilasheena qaarna waa laayay ila tariyo siiya barna wuu noo soo adeegsaday wuxuu raxbadeeyo markay banaanbaxaan ama ay aftidooda sheega tagaan annaga shacabaan nahay waxaan rabnaa in aftideena ka hadalno codkeena dhiibano wiilasheena wixii dhintamaan wixii kale in noola keeno horta codseena adduun marka koobaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad farmaajana waa lagu xisaabtami doonaa hadii ilaahay yiraahdo oo dawlad caadil ah leelo raggeena wiilasheen inuu barna ku laayay Itoobiya oo ka gatay ninka la yiraahdo la tariyo barna oo annaga noo adeegsado yiri laayo hooyooyinka ee garaace shacabka tuma markay banaanbaxayaan inuu yiraahdo waa ka haynaa laakiin waa lagu xisaabtamaa insha Allah taala banaanbaxani wuxuu tilmaamayaa amba ka turjumayaa banaanbax ku saabsan waaye ninka ex madaxweyne Farmaajo ama madaxweynihii hore oo Soomaaliyeed oo aan ugu baaqayno in uu maaragtay iskaga tago oo maaragtay isku ceebayna xilka uu isku dhadhajinayo marka banaanbaxani waa banaanbax ka turjumayo dareenka dadka ku nool xamar oo daafihiisa wada jiraan marka banaanbaxani waa banaanbax nabadeed banaanbax aan maaragtay nabad kaliya nabadda tilmaamayo waaye waa banaanbax baaq loogu diraayo madaxweynihii hore Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loogu diraayo inuu kursiga si nabada uga dego dalkana maaragtay loo sameeyo golo badbaado banaanbax dib wata maahan waa banaanbax nabadeed waxaan u sheegaynaa madaxweynihii hore Farmaajo waqtigiisu waa dhamaaday hadda madaxweynihii hore waa hadda madaxweyne maahan dalka waa u simanahay askartaan haddana wadadooda noo istaago maanta xataa na soo bursanayso qoryo baadka noo garaac shacabaan nahay anaga cidna soo dirsata ma lahan qof aan u shaqeynayna ma lahan dalkaanaan u dhalanay dalkaanaan ku dhalnay waxa waaye waqtigiisu waa dhamaaday kursiga nabad ha ugu degto waqtigiisu waa dhamaaday yoona cadibin dagaal sokeeyo noo keenin qalalaasiyo noo keenin hadduu tiiraanyada maanta aan qabno ujeeda oo ka soo jawaabi waayana waxa waa biri madaxtooyadaan joognaa cid naga celin kartaa cid naga hortaagin istaag kartaa ma jirto intaan hadda sida ay u socdaan hadii uu ka jawaabi waayo waxa ay ka dhiidhayaan madaxtooyada inay ugu imaanayaan inay lugta ka soo qabaayaan balan waxa kale ogaatiin dadka la adeegsanayo oo askarta ah ama saldhigyada joogo ee loo soo adeegsaday dadka shacabka ay shucuurtooda rabaan inay muujiyaan waa la wada yaqaanaa nin walba magacu leeyahay meeluu degan yahay gurigu degan yahay la yaqaanaa qabiiluu leeyahay odayow leeyahay ha isku tashto nin waqtigiisa dhamaaday nin rabo inuu dadka u cajajuubo ha isku tashto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne ex waxa ku leenahay nabad iyo naxariis beledkan ku imaaday nooga bax adigoo nabad macnaa nooga tagaysid ha isku kayna dirin ha isku kayna laynin shala farxada lagu soo dhaweeyay maanta farxadan kugu soo gootinaynaa waa hadaa diyaar u tahay hadaadan u ahaynin kama fiicnid dadkii shalay wadanka laga deji jiray muddooyinkii dambe ayaa magaalada Muqdisho waxa ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaas oo dadku ku dalbanayeen in doorasho dalka uu galo isla markaana dawladdu